اي عنتمي مايو وحسان ايغو عنتمي موقف حكومة قادتي وموقف آد مركا لغا ايغو حق عرب نماذا حق لغا ايغو ان حبنا كونا جامعة عربتا حق اسلامك لغا ايغو ها وحفي عنوية لكن وحاو aan ka eegayaa mowqifkaas aniga saameyn intee leeg buu igu leeyahay dabadeed mowqifku waxaan u qaadanayaa meesha danta Soomaaliyeed ku jirto baan u qaadanayaa danta Soomaaliyeed hadda mowqifkaas ah dhexdhexaadnimadu waxay tiri maayo aniga wuxuu ii dhimo maahan maxaa yeelay walada cabanaysa oo leh nimankaan oo argagixisay gacan siinayaan u qaadan maayaan arrintaas dhexdhexaadnimo u qaadan maayaan maxaa yeelay waxay u arkayaan inaan hawadeydii u furay oo nimankii ay hawadeydii isticmaalayaan waxay u arkayaan wax aan qaadi karin maxaa yeelay waxay arkayaan oo gacan iga siiyaan qaarkood sida masalan imaaraadka oo kale imaaraadku ciidankaygay dhistaa oo tababar siiyaan xamar ciidanka xarun lagu tababaro oo iyagu ay dhiseen oo maalgeliyeen oo ciidankaygay ku tababaraan ciidanka maxaan u samaysanayaa waxaan u samaysanayaa inaan kula dagaalamo dadka ka soo horjeeda xasiloonida dhulkayga amnigayga wuxuu dhimaayo oo iyagu ah kuwa ay hadda ka cabanayaan in walaalahooda qadariyiinta ay ku sameynayaan oo ah dad xag jira ama argagixisa bay maartay ka cabanayaan anigana kuwaas iga caawinayaan oo dhulkayga hadda khatar igu haya imaaraadka ganacsigayga ugu badan meesha uu ka yimaado weeye ganacsatadayda inta waxaysato oo wax dhoofisa ama wax keenta xarun waxa uu Dubai ba ah marka xiriirka iyagu labadayada meeshiisa ka dhaqaaqo nimankaan hadda soo cawday oo yiri waxay aanu ka caawinaynay ba anaga hadda dhibahoona haysta adiguna naga caawi anigu aan idhaahdo adiga qoladeedana haysta idinkay idin taal aniga dhexdhexaad baan ka noqonaya taas shaqayn mayso marka waxba ii dhimaysta ganacsiga halkaas waa koow midda labaad nin ii yimi oo aniga iga caawinaya amnigaygii oo maanta isagii leh waxa dhibi iga haysataa amnigii waxaan ka caawinayaa nimankaan aniga hadda aan uga baqayo inay iga sameeyaan daraad maalin dhaweed waxa ka dhacay meesha la yiraahdo af urur dhibaato xun baa ka dhacday oo naxdin leh oo aan islaamka meelay ka dhacdo la arag habeen iyadoo ramadaan dad muslimiina inta la soo weeraro la baabi'iyo dadka halkaa ku noolaa oo ciidankii iyo shacbigiiba la baabi'iyo oo runtii wax aan meelna adduunka islaamka laga araga cidda ugu horeyso ii soo gubato gacanta isiisay waxa weeye ciidankii iyagu ii tababareen oo boosaaso jooga ayaa maanta dhulkii jooga oo dagaalkii ka wada oo ila difaacaya dhulkayga oo nimankii iga ilinay shay u oran karaa anigu marka nimaa waxba igu dartay waa gartay marka tii xaggii nabadgelyada weeyaa tiri xagga imaaraadkaadna xooga saartay xagga sacuudiga ka waranayaba حقي سعودي أنا سيدو كلوي أنا السعودي دل وين ويا وحنا نقدر حي جناحسي بقى نقدر عبد الله جناحسي قوي وح عنده فينا نجوا حوي حولها سنة كي 5 مليون أو نف بانو فينا دلات كان كوغبي أو مروة إيجاد جوجيان مروة فران ما أنت فرصة يتالوي ودور الدنيا تواي هاي صحيح أمني قام بينو إسكسينينا جناحسي حولها صحيح لا لماذا إذا قعن كجيسنا يسوون لماذا إذا وحبان لك شيء هذا كور يقول محام كوير هذا غار يكمل ذا ورقة يقرقون يبا وفسجل كجري ولي الصومالي وابربولي قار هالكلا لماذا إذا إني لما تابتان تياد قعن كجيسنا سأدي إمارات كوا صحيح بدي بديك الدلك قعن يقسينا يسوون كين وحان كل سلاسة وهي شيء رسمي على لقره كورنا قدر لفعانتها kumanaan Soomaaliya ka xoogsada dad badan baa degan oo ku nool Soomaaliya mashaariic fara badan iyo hawlo badan oo gargaarka ay gacan ka geysataa intaas tixgelin malamiya walaadahay laakiin marka wax qiyaasayo miisaan baan saaraya inta ka shaqeysata qadar waarun waa uga mahad celinaynaa in intaas oo kaleeto oo heeraha samafalka iyo meel kale inay gacan naga siiyeen mar walba waa uga mahad celinaynaa oo dafirmayno laakiin keebaa labadooda ii roon waxaan ka codsanayaa mowqifka hore in dawladdu dib u eegid ku samayso